marka ugu horeysa soo dhawaada maanta waxaan aad ugu faraxsanahay qiyaas aan la koobi karin u maraya farxadayadu inaan nimaadno degmada Tuulikuule oo runtii dhibaato badan hadda ka hor ay ka dhacday dadkeeduna uu ku mintiday sida aad noo soo dhaweyseen iyo kalgacaylkiina aad iyo aad baan ka mahadcelinayaa inaad la kulanana aad baan ugu faraxsanahay dhibaatadii idin soo martayna waan xusuusanahay intii inaga dhimatayna Rabbi subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto inta dambana Ilaahay sax inoo badbaadiyo kuntii mashaakil dhibaataysa inta dhaawacana Allah caafiyo agoon iyo rajooyin buu ka tagay dagaalkii soo maray xanuunka kulula iyagana Ilaahay inoo koriyo hadda waxaan u baahanahay koow nabad baa laga shaqeeyay odayaasha waxgaradka iyo sida loo sheegay dawladda laftigeeda ay gacan ka geysatay taa in la xoojiyo waynu u baahan nabaddu ugasha bini'aadam ee ugu fiican waa nabadda qiimo gooyo oo la dhigi karo waxa nabadda u dhigtaa ma jiro inaad maanta gurigaaga iyo beertaada iyo deegaankaaga adoon walba haarsanayn aad ka shaqayso joogtay oo waxyaabaha Ilaahay raxmadiisa kamid ah waa caqabad يعني marka dagaal la gelayo waxaad ogtahay inay kaaga dhimanayaan dad qaali haliyeeyo qaaliya wiilal iyo gabdho iyo culimaadudiin iyo aqoonyahan badan baa kaaga dhimanay inay ka dhintaan marnaba maadan qorshahaaga iyo raali kamaadan noqoteen waadan kugu kaliftay weeye waxaanu ka shaqeynaynaa insha Allah dhinacyada dagaalamayay inay hadda kadib noqdaan dad walaala oo gacmaha haysta oo wax wada qabsada waxaan filayaa dadkeena waynu naqaanaa waa dad islaam oo hal isri hal qoys ka soo wada jeeda dhinaca kala saarso sidaan ognahay waa dad walaala oo islaam waana isdhalay soo saamaha in la iswada dhalay oo seedii abtigiisu ma wada jirin soo la isba guursan jirin soo dhaqan Soomaa yani ehelnimo lagu wada noolay harna ka inaan soo celin wax walba waxa ugu qiimaha badan waxa weeye waa dadka muslimku horta inuu islaamnimada isu xidhiidhiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu amray in dadka muslimiintu gacmaha is qabsadaan xaq isu kaalmaystaan yani waxta sameey bihablillahi jamii'a wala tafarraqu Ilaahay saasuu leeyahay dhammaan marka wuxuu amrayaa dadka muslimiinta uu leeyahay gacmaha is qabsada waxaan iska xignaa ummadaha intooda kale waxaynu u baahanahay inaan marka ilaa meel kasta ayna la gaadho inay amnigu ahaado mid laga wada shaqeeyo dhalinyarada aqoonyahanka gabdhaha dhamaanteen odayaasha culimaadudiinka wax garad iyo maamulkuba runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maamulka iyo odayaasha iyo bulshada oo dhan say wada shaqeynayaan hadda isugu furayeen waan wada aragnay waad u jeedaan dhalinyaradii maamulka ku jirtay iyo madaxdii way joogaan xubnihii baarlamaanka oo waan aragnay okay arrimahaas aad qaabka aad u wada shaqeynaysaan yeen u baahanahay iyadan inaan sii korno dersiyadana qaabka ay ku wada noolaadaan ma dhahayno hadday colaado timaado dadka waan iska celinaynaa waxaan dhahaynaa horta maba imanayso meesha waa inaan ka saarnaan dhahaynaa innaga qorsheenu ka way aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waan idinkuna sii dardaarmaynaa idinku is horumariya yani dawlad iyo hay'adaha way ku taakulayn karaan waxbay kugu taakulayn karaan laakiin gabadha kuugu samayn mahayaan cooshad wiilka kuugu furi mahayaan dukaan kuma samayn hayaan yani noloshaada aday kugu xidhanta beertaada abuuro aqoontaada kordhi ilmahaaga hadaadan dugsiga adigu keenin ma waxa jirta cid intay ku dhaaftay ilmahaaga ka qaadanayo dugsiga geeyni ma jirtaa beertaada hadaad ka fadhiisato ma cid ku dhaafiyo ka shaqeeyni ba jirta yani hadii aadan adigu caafimaadkaaga iyo dadnimadaada aadan ilmahaaga iyo dadkaaga aadan ku wada yani wax walba inaga gacmaheena ku jiraan insha Allah ta'ala maanta ma aha maalinka isugu keen dambeysay haday tahay maalinka ugu horeysay Tuulikuule isugu nimaadno waxa iman doonta xilliyo badan oo isugu imaano oo idin magacyada aan wada barano Heblaaye Hebel Sheekh Hebel Macallin yani saasaan si wada baran doona hadii Ilaahay yiraahdo waqti waxa inoo bilaaban doona wada shaqeyn walaaltinimo waxaynu ahayn hal heera oo walaala oo isir iyo ka soo wada jeeda oday taamicid badid inta kala maqnayn duruufaha baan ku kala maqnayn laakiin haddana xogogaal baan isku nahay wixii hadda iyo wixii ka bilowda waxaynu ahaanaynaa dad isku mid oo isku tiirsan dhibaata haday jirto waa ku imaanaynaa meesha
وحي أبان حل إلا الرادي وإذن الرادينينا مشاكل بدن هدين اللو بهان يهين مارتي لغا تشدو وإذن إيمانينا آد بادو ما سنتين سود وهذا السلام عليكم